inti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba mar kaleeto ku soo dhowaada falanqayn gaaban oo ku eegi doona xaaladii ugu dambeysay ee Itoobiya iyo dagaalada ka socda gobolada waqooyi ee dalka Itoobiya. Xaaladda dagaalka ayaa marba mar ka sii dambaysa sii xumaanaysa, halka marxaladaha dagaalku ay si tartiib isku sii rogrogayaan. Dowladda Itoobiya iyo sidoo kale jabhadaha ku soo duulay TPLF iyo OLA ayaa maalmihii ugu dambeeyay dagaalkoodu uusan aad u sii xoogsanayn, balse furimo hor la isku sii dagaalayay. Horaantii jabhadda TPLF ayaa guulo muhiim ah ka soo gaadhay furimaha dagaalka ay ku dagaalamayeen militariga dalka iyo sidoo kale maleeshiyaadka Fana iyo sidoo kale new boolisiyada deegaamada qaar. Maalmihii ugu dambeeyay jabhadda TPLF ayaa sheegaysay inay dhawaan ku soo qulquli doonto magaalada Addis Ababa ee xarunta caasimadda dalka Itoobiya, halkaasoo ay safaaradaha beesha caalamka ugu baaqeen muwaadiniintooda inay ka soo baxaan. Warkaas ayaa ahaa war si weyn loogu baahinayo saxaafadda caalamka, balse saacadihii ugu dambeysay jawiga dagaalka ayaa la filayaa inuu isbedelay oo uu hal mar saacadu dhanka kale u wareegtay. Jabhadda TPLF iyo sidoo kale OLA oo isbahaysanaya ayaa dagaalo xanuun badan kala kulmaya ciidamada militariga Itoobiya uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Cali oo ah taliyaha ugu sarreeya ee Itoobiya ciidamada militariga. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa horaan sheegay in uu soo afjari doono maleeshiyaadka ku soo duulay dowladda Itoobiya ee hogaaminayaan jabhadda TPLF iyo OLA. Dhanka kale waxaa iyaguna dagaalka qayb ka ah maleeshiyaadka dowlad deegaanada iyo sidoo kale ciidamo isku xilqaamay oo loogu magac daray midnimada badbaadinta qaranka. Dagaaladii ugu baana ayaa maanta la sheegayaa inay ka dhaceen goobaha qaar. Dowladda Itoobiya militarigeeda ayaana sheegaya guulo wax ku ool ah oo ay ka gaadheen furimaha hore ee dagaalka. Taliyaha Itoobiya ugu sarreeya ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo sidoo kale saraakiisha dagaalka hogaaminaya ayaa sheegaya inay qabsadeen goobo muhiim ah oo istiraatiiji ah oo horaantii bilihii tagay laga qabsaday ciidamada militariga Itoobiya. Ciidamada militariga Itoobiya ayaa sheegaya inay si buuxda ula wareegeen magaalada qadiimiga ee taariikhiga ah ee Lalibela iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha ee magaalada Lalibela oo ah mid ku yaala duleedka magaalada. Waxaa xusid mudan inay si buuxda maanta xog sheegaysa in ciidamada Tigreegu iskaga bixeen magaalooyin muhiim ah oo kuwaas ay hore u qabsadeen. Dowladda Itoobiya militarigeeda ayaa sheegaya magaaladan qadiimiga ee Lalibela oo dhanka magaalada Gondar ka xigta kana xigta magaalada Dhasa dhanka Gondar inay qabsadeen ciidamada militariga Itoobiya. Horaantii bilihii tagay ayay qabsadeen ciidamada ku soo duulay Itoobiya ee TPLF iyo OLA, kuwaas oo si buuxda ula wareegay goobo muhiim ah waa magaalooyinka Kombolja, Dhasa iyo sidoo kale Khimis. Magaalooyinkan muhiimka ay sheegayaan ciidamada militarigu inay qabsadeen ayaa loo dhigayaa inay tahay abaabulka ballaaran uu sameeyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Cali oo furimaha hore dagaalka tagay. Dhanka kale waxaa la sheegayaa asna inuu dagaal culus ka socdo deegaamada Axmaarada ay la wadaagaan dalka Suudaan, halkaas ay ku soo qaadeen dagaal xun ciidamada Suudaan. Warbaahinta Suudaan ayaa sheegaysa in magaalooyin muhiim ah ay gudaha u soo galeen ciidanka Suudaan. Warkan ayaynu dowladda dhexe Itoobiya wali ka jawaabin. TPLF ayaa la sheegayaa in ay diiday in ay waraysi siiso warbaahinada caalamka sida Reuters iyo warbaahinno la sheegaya markii hore inay ka agdhawaayeen madaxda ugu sarreysa TPLF Getachew Reda iyo sidoo kale madaxweynaha deegaanka Debretsion Gebremichael. Jabhadda TPLF ayaan dhankeeda wali wax ka soo saarin wararkan sheegaya in magaalooyin muhiim ah laga qabsay iyo sidoo kale OLA. Wararka qaar ayaa sheegayaba magaalooyin waaweyn waa magaalooyinka Dhasa iyo Kombolja inay ciidamada TPLF iskaga bixeen, halka khubarada caalamka ay sheegayaan istiraatiiji military oo ah si ay uga bixeen maqalay sanad ka hor markii lagu duulay inay noqon karayso arrinkan. Balse wararkii sheegayay inay 130 kiiloomitir u jiraan jabhadda TPLF ayaa ka dhigan markan inuu sii siqayaan xoog ku soo duulay magaalada Addis Ababa. Dagaalada ayaa marba marka ka sii dambaysa sii adkaanaya, halka saaxadda dagaalkuna ay sii rogrogayso. Ciidamada militariga Itoobiya oo ay caawinayaan maleeshiyaadka canfarta iyo sidoo kale ciidamo cusub oo aad loo qoray ayaa dagaalada kula jiray maalmihii ugu dambeysay. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Cali ayaa lagu arkay furimaha hore dagaalka iyo sidoo kale buuraha lagu dagaalamayo. TPLF ayaa sheegaysa in ay u gali doonaan magaalada Addis Ababa gudaheeda. Sidoo kalena maalmihii ugu dambeeyay waxaa la isku dhex waday inay ka diyaar garoobayaan qaabka ay u gali lahaayeen magaalada Addis Ababa ee xarunta caasimadda dalka Itoobiya. Jabhadda TPLF iyo OLA ayaa la sheegayaa maanta in laga riixay goobo muhiim ah oo ay haysteen. Warkan ayaysan wali ka jawaabin jabhadda TPLF kana hadlin. Arrintaas ayaa u dhigmaysa in TPLF uu soo gaadhay khasaare. Khubarada caalamka ayaa sheegaya inay dagaal ka qayb qaadanayaan
diyaaradaha iskooda u kacaya droniska kuwaasoo kaalin buuxda ka qaadanaya diyaaradahaasi oo kaalin buuxda ka qaadanaya dagaalka ka socda waqooyiga gobolada Itoobiya iyo sidoo kale maleeshiyaadka ku soo duulay deegaanada Addis Ababa iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee deegaanka Axmaarada sidii looga difaaci lahaa Itoobiya. ololaha midnimada qaran ee uu ku baaqay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa la filayaa wajigiisii koobaad inuu midho dhalay una eg yahay November markii ay galeysay dowladda Itoobiya magaalada Maqale ee xarunta caasimadda dowladda Tigreega kadib halkaas oo olole military lagu qaaday guud ahaan deegaanka Tigreega lagu qabsaday balse muddo lagaga soo baxay. arrinkan ayaa u dhigan isdifaacidkii ugu dambeeyay militariga Itoobiya sameynayaan jabhadda TPLF-na dib loogu celin lahaa goobaha ay ka soo duuleen bilihii hore ee tagay. ku dhawaad 700 kiiloomitir ayaa la sheegayaa oo firirsan inay ku jiraan jabhadda TPLF lana sheegayaa in galabta iyo maanta intii ugu dambeysay goobo muhiim ah laga qabsaday. warbixinada wixii ka soo ziyaada waxaad kala socon doontaan halkan iyo bartayda Facebook. mahadsanidin.